madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa baarlamaanka dalkiisa waxa uu sheegay arrin muhiim u ah marka la eego dhanka Soomaaliya soo saarka shidaalka isagoo sheegay in maraakiibtii ugu dambeeyay ee dhanka Soomaaliya gaaray ee dhanka militariga in guulo waaweyn ay ka gaareen sugidda amniga guud xandaabka halka laga qodayo shidaalka Soomaaliya ee ceelasha lagu arkay madaxweyne Erdogan waxa uu tilmaamay in dawladdiisa ay noqon doonto dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliya u soo saaray nacfiga macdanta iyo shidaalka dabiiciga ee alla ku manaystay taas oo ceelal ka mid ah ceelasha shidaalka Soomaaliya ku yaal oo 2024kii sahmin lagu sameeyay 2025 dhamaadkeeda lagu waday in la soo saaro balse duruufo yimid dartood haatan lagu dhaqaaqayo iyadoona marka la furo afka bisha barakeysan ee Ramadaan kadib ay bilaaban doonto hawsha qodista shidaalka Soomaaliya Erdogan waxa uu tilmaamay in xiriir dhow uu la sameynayo markabka dalkiisa ka socda iyo maraakiibta kale ilaalinaya kaas oo ah markab ka shaqeynaya dhanka soo saarka shidaalka Soomaaliya waxa uu guul taariikhi ah ku tilmaamay xaaladaha guud ee la xiriira dhaqdhaqaaqida dhanka siyaasadda ee socda taas oo la xiriirta in xilligan Soomaaliya ay ku baraarugayso qaabka ugu fudud ay arrimahaasi uga hadli karto marka la eego dhaqdhaqaaqida guud ee soconaya waa sida mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Turkigu ay ku warameen ila kala duwan ayaa dhanka kale warbaahinta Xulaasi waxay u sheegeen in wufuud ka socda dhanka iyo Turkiga oo kuwa injineer ah in ay soo gaareen Muqdisho maalmihii u dambeeyay waxaana ujeedkoodu ahaa in ay sii bilaabaan sahanka iyo baarista ugu dambeeya goobaha maraakiibta iyo qalabka kale la dhigi doono qaabka loo soo saari doono shidaalka iyo in la sahmiyo halka sida rasmiga lagu sifeyn doono madaxweyne Erdogan ayaa baarlamaanka dalkiisa waxa uu sheegay in gudaha Soomaaliya lagu sifeyn doono shidaalkaasi laga helay gudaha Soomaaliya isagoona tilmaamay in dhammaan qalabka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah marka badaroolka oo ceeriina la soo saaro kadib looga faa'iideyn doono Soomaalida isla markaana fursad weyn arintaas ay u noqon doonto markabka howlgalka fulinaya ee loogu magac daray curadka ama dalaanka koowaad ayaa la sheegay in ujeedkaasi uu ka yimid madaxweyne Erdogan maadaama Soomaaliya xiriir dhow wadankiisa uu kala dhaxeeyo madaxweynaha Turkiga ayaa warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in dawladdiisu ay markaan xoog saarayso qaabkii loo gaari lahaa hadafyada siyaasadeed ee waaweyn ee dhanka geeska Afrika isagoo tilmaamay in dawladdiisu ay ka shaqeysay sare u qaadista dhaqaalaha dalka sida ilaha ugu muhiimsan waa dekedda iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho dawladda Turkigu waxay guul taariikhi ku tilmaamtay in dekedda Muqdisho ay la shuraakoodo dekado waaweyn oo caalami ah kuwaas oo haatan ka howlgala wadamo kala duwan isla markaana la siiyay abaalmarin gaar ah oo la xiriira qaabka Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga gungaarto arrimahaasi hadda soconaya ilahan ayaa dhanka kale waxay wararka soo baxay tilmaamayaan in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan arrimahan tiyo jirto ayaa madaxweyne Erdogan waxa uu dhanka kale afka ku ballaariyay in dawladdiisa ay wado abaabul xooggan oo ku saabsan arrimahan taas oo lagu gaari doono hadafka siyaasadeed ee arintaasi la xiriira hogaamiyaha Turkiga oo Soomaaliya kol hore yimid ayaa mar kale doonaya in uu cagihiisa dhigo Muqdisho isagoo ujeedkiisu yahay in uu ka faa'iideeyo fursadaha kala duwan ee Soomaaliya markan banaanka u soo aaday taas oo la xiriirta in dawladda Turkigu ay noqotay dawladdii ugu horeysay ee sahmin ku sameysay shidaalka Soomaaliya si dhameystiran maadaama ay jiraan dawlado markii hore dulmar ay ku sameeyeen arrimaha shidaalka Soomaaliya laakiin sida Turkiga oo kale aanay u baarin sida ay sheegayaan xogaha iyo sooyaalka kala duwan xubno ka tirsan wasaaradda macdanta iyo badaroolka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in xilligan Soomaaliya ay ku gaajo bixi karto arrimaha guud ee abaaraha iyo waxyaabaha kale ee jirana uga gudbi karto in ay nacfigeeda ka faa'iideysato taasoo keenaysa in dawladda federaalka Soomaaliya xoogga ay saarayso in la soo saaro shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga
ilahan ayaa dhanka kale waxay ku warameen in maalmihii u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay waday dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahan iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dhanka iyo dowladda Turkiga ay tilmaameen in ay socdaan abaabul iyo isku dayo kala duwan oo arrimahaasi la xiriira xubin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in maalmihii u dambeeyay ay wadeen dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul kala duwan taas oo la xiriira sida ugu fudud ee loo gaari karo hadafka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee Soomaaliya iyadoo lagu duulayo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Muqdisho iyo Ankara ka dhaxeeya wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tala xigta ee warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku maasantahay daawashadii la socodka wararkayga.